الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. أيها الأحبة في الله، نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وحليه وحال إيسو دري إن دميستره أخلاق دمديده ونعكسه diintan ilaahay inoo soo dejiye nabi maxamed la inoogu soo dhibeen rumaysannahay ee masaajidka inoogu soo kulmisay tiirarkeeda waaweyn waxaa ka mid ah iyo usuusheeda akhlaaqda ka mid in dadka la faro oo mujtamacu qaato akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan akhlaaqda xun iyo dhaqanka xunna lagala dagaalamo oo laga fogeeyo mujtamaca. akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ee diinteenu la timid waxaa ka mid dhowrsoonaanta iyo cifada iyo asturka iyo xijaabka iyo ragga iyo dumarka in la kala fasliyo oo inay isku dhex darmadaan la kala dhowro. rabbigeen tabaaraka wa tacaala meel fog buu wax ka arkaa, waxba kama qarsoona. axkaamtan markuu jidaynayana wuxuu u jidaynayaa maslaxo, markuu wax inaga reebayana wuxuu inooga reebayaa mafsado iyo dhibaato ku jirta. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu amray gabdhaha muslimaadka ah inay isxijaabaan oy is-asturaan. suuratu nuur iyo suuratu alaxzaab aayado badan oo qur-aanka ka mid ah ayuu rabbi ku faray tabaaraka wa tacaala inay isxijaabaan oo is-asturaan. aayaadkaasi markay soo degeen oo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ummadda u sheegay oo raggii ay nebiga ka maqleen sal alla alayh wasalam oo ay guryaha la aadeen oo dumarkii loo sheegay aayadaa soo degay idin faraya inaad isxijaabtaan. habeennimaa loo sheegay dabcan cishaha wixii ka dambeeya ayaa warku gaadhay. subaxdii ma soo bixin oo gurigeeda kama soo bixin haweenay aan xijaabnayn oon asturnayn. sidaasuu sha'nigoodu ahaan jiray rag iyo dumarba, ayagoo qal wixii ku dhex jira xataa haddii aayaadku dul yimaadaan meesha ay maraysay ku joojin jireen. si degdegay amarka ilaahay u qaadan jireen tabaaraka wa tacaala. xijaabka iyo asturku waa astaan iyo calaamad ay leedahay gabadha muslimadda oo cifo iyo dhowrsoonaan ka turjumaya, dahaaro ka turjumaya. mujtamaceenna wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha aan luminay iyo mabaadi'da iyo akhlaaqda aan luminay oo dhaqankeennii hore ka baxay bay ka mid ahay. laakiin ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala dadaal badan iyo juhdi badan oo culimmada iyo ducaadda iyo muslixiintu ay ummaddan geliyeen tobannaankii sanee tegay ayaa ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala xijaabku soo noqday oo iltisaamkii soo noqday oo muxuu ahay madaahirtii diinta laynooga sheekayn jiray dhaqan ay isu beddeshay. imisaa dadaal la geliyey bay idinla tahay? imisaa wakhti ku baxay in dumarkeenna muslimaadkaa la xijaabo, in asturka iyo xijaabku uu u noqdo astaanta meelay marayaanba ay xijaaban yihiin. imisaa dadaal lagu bixiyey oo imisaa juhdi la geliyey oo imisaa wakhti ku baxay oo imisaa culimo loo xidhay oo ducaad oo imisaa loo garaacay oo imisaa dalkoodii iyo dhulkoodii looga masaafuriyey oo qurbaha u aaday oo imisaa dhibaato loo soo maray, bal imisaa lagu dilay oo ducaad iyo muslixiinta ah. ummaddani inay diinteeda iyo dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda u soo laabato. ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala dadaalka iyo juhdiga dheer kadib waxay noqotay xijaabkii iyo asturkii inuu mujtamaceenna dib ugu soo noqdo oo ay gabdhaheennu xijaabka meel kastoy marayaan walilaahi alxamd inay astaan u noqdo oo ay ku faanaan ooy ku dhiiradaan oyna ka baqan. xataa hadday dawladuhu la dagaalamayaan, dawladaha reer galbeedka
khaasatan faransiiska oo ah dawladda calmaaniyada ilaalisa asalna u ah dagaal bay ku qaaday xijaabka gabdhaha muslimaadka ay asturkooda baarlamaankii iyo dawladdii oo dhan baa wuxuu u soo dhigtay gabadha xijaabkeeda in laga furo waa cajiib dawladdan oo dawladaha adduunka kuwa ugu xoog badan ka mida in saasadeedii iyo baarlamaankeedii iyo dhammaan muddo dheer laga mudaawaleeyo laga hadlo xijaab iyo mara gabadh muslimada ay xidhan tahay macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxa weeye xijaabkani mara keliya ma aha laakiin wuxuu ka turjumayaa wax badan oo ku qarsoon ama ka dambeeya astaaru cifo iyo dhowrsoonaan waay waxaa aad iyo aad ay ugu ammaanan tahay in badan oo gabdhaheenna ka mida akhawaadkeenna ka mida adduunka meelay marayaanba inay dhiiradaan oo yurub ku maraan oy maraykanka ku maraan oo australia ku maraan oo adduunka meel walba xijaabkooda iltizaamaan xataa meelo khatar ah oo halis ka soo gaadhaysa inay xijaabkooda iyo asturkooda ilaashadaan ilaa ay mujtamacaadkii kale dhulka ay ugu tageen saameeyeen oy wax ka beddeleen oo isku xishoodeen inay baxaan ayaga oo aan xataa xijaabka wuxuu magac xijaab leh inay qaataan mooyaane waa qodob ay waajib tahay in loo sajilo gabdhaha muslimaadka ah ee diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala qaatay ee xijaabka qaatay laakiin mar walba waxa xaqiiqo ah ummaddan diinteeda caqiidadeeda akhlaaqdeeda dhaqankeeda duulaan baa ku socda mukhatataad iyo qorshayaal iyo mu'aamaraad baa ku socda la doonayo in ummaddan laga siibo asturkeediiyo xijaabkeediiyo caqiidadeeda laga siibo lianna waxaa xaqiiqo ah ummadu waa akhlaaq ummaddu mar hadday akhlaaqda lumiso ummaddaasi waa baaba'day khaasatan ummadda muslimka ah jiritaankeedu waa caqiidadeeda iyo akhlaaqdeeda wey markay akhlaaqda lumiso waxay noqonaysaa luqmad si fudud loo liqi karo ninkii doonana uu isticmaali karo adeegsan karo si fududna loo dumin karo oo looga takhallusi karo sidaas daraaddeed derbiga ummaddan ilaalinaya bifadli illaahi wa mannihi ku ilaashan tahay waa iltizaamka oo uu ka mid yahay xijaabka iyo asturka iyo dhowrsoonaanta iyo cifadu ay ka mid tahay sidaas daraaddeed baa wuxuu noqday hadaf la weeraro miyaad ogsoontihiin masar oo ashar iyo cilmiga iyo aqoonta meeshii muslimiinta u noqon jireen muddo dheer ah bartamaheeda maydaanu taxriir dumar faasiqaada inta lasoo soo saaro gaalo soo isticmaashay oo xijaab iyo astur loo soo geliyey inay xijaabkii intay siibeen oo maydaanu taxriir ay dhigeen meeshaa lagu daaray dab oo xijaabkii la gubay oo la yidhi masar way xorowday maxay ka xorowday xaggay u xorowday maxayse ka xorowday waa su-aal isweydiin gaalaa ka dambaysay waa mu'aamaraad socda hay-ado fara badan jamciyaad fara badan mu'asasaad fara badan oo ka dhex shaqaynaya mujtamacaadka muslimka iyo dalalkooda iyo deegaamadooda oo in badanoo ka mida ay wadaan dad magac islaami iyo muslimiin ay wadaan wax kale kama shaqaynayaane waxay ka shaqaynayaan in cunsurkaa la burburiyo ummaddan iyo cifadeeda iyo dhowrsoonaanteeda iyo xijaabkeeda iyo asturkeeda in la baabi'iyo taa lagula yaabi maayo gaala inay ka shaqaysa laanna gaalayba u tahay laakiin waxa la yaab leh oo wax lala yaabaa ninkii ilaashan lahaa hawshan inuu ka seexdo ninkii waardiyaysan lahaa inuu dayaco ninkii wanaaggan xifdin lahaa ee ilaalin lahaa inuu faraha ka qaado isha ka daawado waa mujtamaca muslimka ah waa dadka mas-uuliyiinta ah waa culimmada iyo ducaadda waa rag iyo dumar muslimka qalbigooda iimaanku ku jiro soo nabigeennu inama dhihin salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaalaha laga soo gaadhay nebiyadii hore hadallada murtida qiimaha badan ee laga soo gaadhay waxaa ka mid ah haddaadan xishoonaynin waxaad doonto samee xishoodku waa tiir aasaasi ah miyaan nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uusan in badan ummaddan kula dadaalin oo amrin oo noloshiisa ku qaadanin salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida ummaddan muslimka cifadeeda iyo dhowrsoonteeda asturkeeda loo ilaalin lahaa miyaanaan ahayn ummaddan rabbigeen rabbi tabaaraka wa tacaala uu siiyey tilmaanta ah waxaad tihiin
ummad la saaray midda ugu khayr badan xaggeena loo saaro naloo diray wanaaggaa dadka faraysaan xumaantana waad reebaysaan allana waad rumaynaysaan miyaanaan ahayn ummaddii loogu talagalay inay noloshan iyo doonta la saaran yahay ay ilaaliso oo inay badda gashoy quusto ka ilaaliso miyaynaan ahayn ummatu muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh miyaanan ahayn ummad waajib iyo xil ka saaran yahay diinteeda inay ilaashato oy akhlaaqdeeda ilaashato miyaanaan ahayn kuwa ilaahay ku yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaara allah war dadka mu'miniinta waxaad noqotaan kuwa ilaahay u hiiliya diinta ilaahay kuwa ilaaliya noqda haddaad mu'miniintii tihiin miyaanan ahayn dadka nabigeennu kula hadlay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih ruuxii wax xun arka oo shareecada rabbi ka hor jeeda gacanta waxa kaga qabto hadduusan awoodi karinna carabka ha hadlo ha sheego hadduusan awoodi karinna qalbiga ha ka kahdo intaasaa iimaan ugu daciifsan maanta waxaad arkaysaa asturka iyo xijaabkaasi astaanta u ah ummaddan iyo dhowrsoonideeda weerarada ku socda waxaa ka mid ah waxaa soo baxay maryo magacii xijaabkana wata shuruudihii xijaabkana aan waxba ka wadanin waxaa keenaya oo ka shaqaynaya oo tolaya waxa noocaas ee xijaabka magaciisa iyo asturkii ku ciyaaraya sharikado rag muslimiina ay leeyihiin waxa tolaya oo qaabkaa wax u tolaya waa khayaad waa maratole muslim ah laakiin ama jahli hayo ama shilinka iyo adduunyadaasiba ka tambadisay alaa tastaxyi war miyaadan xishoonayn war markaad ummaddan cirdigeeda iyo sharafkeeda iyo asturkeeda iyo dhowrsoonaanteeda hunguri iyo ganacsi kaa galo miyaadan xishoonayn miyaadan ogeyn inaad ilaahay hor istaagayso tabaaraka wa tacaala miyaadan ogeyn waxaan aad calfanaysay ummadda diinteeda ku khatargelinayso inay aakhiradaada iyo adduunkaagaba baabi'inayaan waa arrin khatar ah waa arrin u baahan lagu baraarugo waa arrin u baahan in waalidiinta mas-uuliyiinta culimmada mujtamaca dhammaantii in layska xil saaro waxa noocaasoo kalea in laga hortago oo asturkii iyo xijaabkii shuruudihiisii watay ku ciyaaraya oo haddii laga aamuso muddo dheer kadib waxaa dhici doontaa inuu isagu bedelo waxaa dhacaysa sida dharka caadiga moodo xijaab moodo ah ma maqashay kanaa ka dambeeyey ma maqashay mid cusub baa soo baxay ayib ha cusbanaado laakiin hadduu shuruudihii iyo aadaabtii diinta ilaalin lahaa dhibba ma lahaate waxaa kaloo ceeb inagu ah oo waayahan dambe inugu soo kordhay kulligeenna aan wada arkayna indhaha ku hayna gabdhaha muslimaadka ah oo qaar badan ku xijaabnaa ay yihiin inay rag ajaanib ah ay la fuulaan bikibiki la fuulaan mootada la fuulaan gadaal bay ka fadhidaa asaguna mootadii buu kaxaynaya qaar horeheedii iyo naasaheediina dhabarkiisuu saaran yahay waddooyinkeennana way marayaan waanan daawanaynaa waa walaalaheen waa gabdhaheenna waa akhawaadkeenna ceeb weyn wey waxaynugu soo kordhay weeye oon jiri jirin miyayna ahayn in gabdhaha muslimaadka laga baraarujiyo daahirada noocaasoo kaleeta aynan xoogaysanin oo laga hortago waa arrin foolxun waa arrin fadiixa ah dembi iyo munkarna waxaa ugu weyn mid bannaanka la soo dhigtay oo la qarsanay intuu qarsoon yahay waa ka shar yar yahay marka bannaanka loola soo baxo oo ishu qabatoon dan laga geli ma saasay ahaan jireen salafku ridwaanullaahi calayhim maya laba miihaal baan idiin soo qaadaya saxaabadii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu waardaah kama fi saxiixayn ayaa maalin maalmaha ka mida waxuu arkay sawda waa xaaskii nabigeenna sal alla alay wasalam binti zamca oo soo baxday oo doonaysa inay xaajo soo gudato
waxayna ahayd markii xijaabka la laazimiyey kadib bay ahayd dumarkuna caadatan waxay ahaan jireen ilaan musqulo ma lahaan jirin guryuhu habeenku markuu galo bay bannaanka aadi jireen oo soo xaaje gudan jireen cumar baa wuxuu arkay sawda oo socota sawdana waxay ahaan jirtay haweenay laf leh oo aad u dheer cumar markuu arkay qaabka sawda u socoto wuxuu u qaatay inay tahay qaab khaldan waase isaga la noqotay kama aamusin ma dhihin waa xaaskii nebiga ya ma dhihin war faragelin ma dhihin maxaa kaa galay wuxuu ku yidhi sawdooy nagama qarsoonid waa ku aragnaa ka fiirso qaabka aad u baxaysa buu ku yidhi sawda markiiba hadalkii qalbigeedu ku dhacway soo ma jirto nabigay u timi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo guryihiisa guri ka mida ka cashaynaya laf hilibana feenfeenanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasay u sheegtay warkii cumar ku yidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markiiba waxyi baa ku soo degay markaasaa nebigu sal alla alayh wasalam wax yar kadib wuxuu ku yidhi sawda ilaahay wuxuu idiin idmay haddaad tihiin dumarkii muslimaadka ahaa inaad danihiinna iyo xaajadiinna u baxdaan alla waa idiin fasaxay waana idiin oggolaaday cumar markuu arkay sawda iyo qaabkan markuu arkay isaga waa la qumanaan wey kama aamusin saasuuna ahaan jiray kaana shadiidan fii diin illah munkar markuu arko nin adag buu ah ilaa nabigeennu yidhaahdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumar jid ma qaado ilaa shaydaanka jidkaas soo hayaayo waa ka leexdaa cumar markuu arko shaydaanku waa ka leexdaa liannahu kaana shadiidan fii diin illah waa adka adayg aan ahayn wax kharribid adayg aan ahayn wax muxuu ahaay wax fasaadin laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala kelimadiisa iyo amarkiisa waa ku adka qisada labaadii waxay yidhi abu hurayra ayaa isagana waxaa soo martay maalin maalmaha ka mid a haweenay muslimad ah oo masaajidka u socoto isa soo cadriso isu soo udgisay markaasaa wuxuu ku yidhi addoontii allaay markay ag maraysay baa waxoogaa wuxuu dareemay oo soo gaadhay caraftii cadarka iyo wixii udgoonaaday soo marsatay markaasuu yidhi addoon allaay ma masaajidkaad u socotaa haabay tay oo ma isagaad isu soo udgisay haa ma garanayso markaasuu wuxuu ku yidhi noqo oo ka soo qabayso cadarkan iyo udgoonkan aad isa soo marisay maxaa yeelay ilaahay ma aqbalo haweenay soo baxday oo bannaanka u soo baxday oo masaajidka soo aaday iyadoo udgaysa ilaahay salaadeeda ma aqbalee kac noqoo soo qabaysa buu ku yidhi iska soo dhaq cadarkan iyo udgoonkan iska soo dhaq abu hurayra ma dhihin faraha ka qaad leanna marka laga aamuso faraha laga qaado waa jaraafiim iyo jeermis fidaya marka ugu dambaysana ina baabi'in doono sida nabigeennu ku tilmaamay sal alla alayh wasalam doon la wada saaran yahay weeye noloshu doontana dadka duleelinaya waa kuwa ilaahay caasinaya haddaad ku fiirsataan ood qaban weydaanna doontu badday wada geliyo waad wada halaagsamaysaan haddaad qabataanna iyagana waad badbaadiseen idinkuna waad badbaadeen sax gabdhaha muslimaadka ah ee waxyaabahaasi ka dhacayaani in badanoo ka mida aqoon uma leh in badanoo ka mida xishoodkoodaa yaraadoo iimaankiibaa daciifay laakiin dad diintooda diidan ama diintoodii nacay ama gaaloobay ma aha saas daraaddeed waxay u baahan yihiin dhimbisha iimaankae qalbigooda ku jirta in la dhaqaajiyo la afuufo ya in lala hadla basay u baahanta in lala hadla bas bay u baahanta in badanoo iyaga ka midana shaki ma leh haddaad tidhaahdo walaalla ilaahay ka cabso xishood ninkan ajnabigeed saarantae gadaashiisa ku dheggan tahay akhlaaqna ma aha diintaanada kuma habboona dhaqankaagana kuma habboona haddaad ku dhahdo shaki ma leh waa xishoonaysa shaki ma leh waxay soo martay maalin dhowey gabadh ka mida gabdhahaasoo saaran bikibikidaasi ama mootada saaran oo nin ajnabiya u wado ayaa isoo dhaaftay anoo jidka haya
waxaan aad u tamaniyay inaan gaaro saa ilaahay amarkii meelaan iga fogeyn bay kaga degtay waan soo gaadhay soo leexatay waan la soo leexday waxaan ku yidhi walaalle ninkan ajnabiga iyo meeshan aad saaran tahay ma kula fiican tahay maya baa tiri maxaa ku saaray dan baa iga fakanaysay sheekh hawl baa iga fakanayso waan degdegayay laakiin waan khaldamay u noqon maayo istaxyad inay oyday ku dhawaatay waa saas laanna iimaanka qalbigeeda ku jiraa keenaya nin dhallinyaraa wuxuu ii sheegay gabdho waxaa jira inta badan guryaha hortooda jidadka caamkee la maraya guryaha hortooda soo fadhiista oo meelaha iskaga sheekaystaa jira waddooyinka caamkee la maraya raggiiba inay fadhiistaan oo nebigu ka dayriyey sal alla alay wasalam ilaa shuruud mooye bay iska soo fadhiisanaya isaga sheekaysanaya gabdho meeshaa fadhiya ayuu soo maray nin dhallinyaraada markaasuu wuxuu ku yidhi walaalayaal meeshani meel munaasib idiina ma aha meeshii gabadh muslimada fadhiisan lahayd ma aha jid weeye guriga gala gabadh gabdhihii ka mid ah u soo baxday dabcan oo xoogaa qur-aanka inay ka taqaaneen waxna ka fahamsanayd markaasaa waxay ku tidhi qowmkii huud nebi huud qowmkiisii hadalkii ay nebi huud ku yidhaahdeen oo ahaa ama nawacdi ama ha nawacdiini waa isugu kaana mid waxba kaa yeelimayn adeer haisdaalinin meeshan waa fadhiyaya wadaadkii intaa unbuu awooddiisa ahayna waa iska dhaafa waa isaga tiri gabadhii afka intaa waa ka tidhi laakiin kelimadii qalbigeeday u gudubtay meeshii kama kicin ilaa ay qoomamootay maalmo kadibna madarasadii iyo darsigii iyo qur-aankii bay soo xaadirtay hawshii iyada ahaydna aad bay uga qoomamootay bal u fiirso dadkani dad xumaan doona uma badna laakiin badankood ama shaytaan iyo naf ama jahli baa haya maxaad diiday markay ku soo martay gabadha muslimadda ee ninka ku dheggan inaad tidhaahdo walaala ilaahay ka xishood istaxyii min allah ilaahay ka xishood inaad tidhahdo maxaad diiday waa qalbigaaga oo iimaankaagaoo daciifay iyo danayn la'aan wey waa gabdhaheenni waa hooyooyin waa akhawaadkeenni waa walaalaheen waa arrin innaga ina taabanaysa maalin dhaweed ugandhaan tegey magaalada kambala sidanaa dumarku uga fuulaan laakiin dumarka gaaladaa fuula dumarka gaaladaa markay saaran yihiin mootada qaab bay u fadhiistaan oo dhinac bay isu dadbaan ayadoon la fadhiisuba sax ahayn ayadoo gaala inay ninka isku dhajisoy qabsato ma sameeyaan dhinac bay u fadhiistaan oo dhinac bay lugaha u duudaan gabdhihii soomaalida markay meesha tageen hadday dhinac u fadhiisatona inay ka dhacday ka yaabi waxana inay fuusho waa rabtaayoo qaar badan baa ka dhacay waxay sameeyeen sidii raggu u fuuli jiray intay u fuuleen bay weliba ninkii isku dhajiyeen mujtamacii reer uganda ee waxaan aqoon jirin gabadh xijaaban oo indha shareeran oo nin ajnabiya sidaa lugaha uga kala gedisay oo haddana issaartay mujtamacii reer uganda waa la yaabay waxay dhahan warkaalay gabdhahan soomaalidii waaba xijaaban yihiin oo asturan yihiin oo iyagaaba kuwanagii ka fiicane kaalisee wax ka yihiin raggan maxaa ku dhaji wax la yaab lay noqotay waxaasi in laga hortagay u baahantay mujtamaca muslimka ah waxaa in la fiirsada ma aha gabdhaha waxa loo sheego ha la waaniyo markay ku soo marto ama agtaada ku dado tartiib wax ugu sheeg ha dilin ha garaacin dhibaato ha u geysanin laakiin tartiib wax ugu sheeg walaala ilaahay ka baq haddii ay qaadan weydo ku labaaday halkaa haddana ku yidhaahdo ilaahay ka baq ku saddexaad uu ku yidhaahdo ilaahay ka baq shaki male gabadhaasi hadda kadib ku dhiiran mayso leanna mujtamacii baa diidan laakiin markaynu aamusno hawshaasi waa hawl inugu soo wajahan iyadiyo wax la mid صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. أيها الأحبة في الله، نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وحليه وحال إيسو دري إن دميستره أخلاق دمديده ونعكسه. diintan ilaahay inoo soo dejiye nebi maxamed la inoogu soo dhiibeen rumaysannahay ee masaajidka inoogu soo kulmisay tiirarkeeda waaweyn waxaa ka mida iyo usuusheeda akhlaaqda ka mida in dadka la faro oo mujtamacu qaato akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan, akhlaaqda xun iyo dhaqanka xunna lagala dagaalamo oo laga fogeeyo mujtamaca. akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ee diinteenu la timid waxaa ka mid dhowrsoonaanta iyo cifada iyo asturka iyo xijaabka iyo ragga iyo dumarka in la kala fasliyo oo inay isku dhex darmadaan la kala dhowro. rabbigeen tabaaraka wa tacaala meel fog buu wax ka arkaa, waxba kama qarsoona. axkaamtan markuu jidaynayana wuxuu u jidaynayaa maslaxo, markuu wax inaga reebayana wuxuu inooga reebayaa mafsado iyo dhibaato ku jirta.